warkii ugu yaabka badnaa dalka Masar wuxuu sheegay oo uu soo bandhigay ciidamo la yiri waxa loo dirayaa Soomaaliya saacadan hadda 2026 la marayo baaba waxa la soo bandhigayaa ciidamo loo dirayo Soomaaliya oo dalal baaba ciidamo shisheeye inoo soo wadaba si ay Soomaaliya ugu soo diraan ciidamo nabad ilaalina kuwii joogay baaban karaxsanayoon dhibsanayo waxaan islahayn khalaas hadda way idinka baxayaan hadda waxa la gaaray waqtigay idinka bixi lahaayeen hadii koowaaba ciidamo Soomaaliya loo soo wada miya hadii 2026 ciidamo la inoo soo wado yani goorman ka baxaynaa ciidamada shisheeyaha inay wadankeena ka baxaan goorman arkaynaa Soomaaliya inay ciidamo shisheeye joogin wallahi ma garanayo hadda dalka Masar baa wuxuu soo bandhigayaa ciidamo la sheegayo in loo soo wado Soomaaliya oo ah ciidamo nabad ilaalina Ugandhiskii Burundigi Ethiopiankii joogay baaban karaxsanay oo dhibsanay oo islaan goorma kuwan idin dhaafayaan goorma siligan meel kasta ku xidhan iyo balaayadan carrada lagu shushabo iyo taangiyadan qofku markuu ka soo dago airportka uu arkay diyaaradahan helicopterka waxyaalahan diyaaradaha dagaalka iyo waxan goorma inta wadanka laga nadiifiyo qofku wadooyinka markuu maray cala raaxadiisa uu ugu raaxaysanaya ciid meel ku shuban bahal xuno shabaq oo carro ku jirto bahalkaas xuno shabaqay carrada lagu shubay cagaarka waan dhibsaday waxyaalaha aan dhibsaday waxa kamid ah airportka aadan cad markaad ka degtid waxa yaala diyaarado dagaal iyo balaayo waxaad u malaynaysaa wadan dagaal ka socdo inaad tagto soo xasiladay garoonka militariga aad ka degtay waxa saaman dhibsanayoon karaxsanay hadda ya koowaaba ciidamo cusubna loo soo wadaa miya wallahi billahi waa cajiib mid kale su'aashan idin weydiinaya waxay tahay ma Masar oo kaliya ciidamada inoo soo wada mise wadamo kale badan baa talo soo wada ciidamada ajaa'ibatu dunya hadii 2026 ciidamo nabad ilaalin la inoo soo wado xaaladii wallahi billahi waa bariga dhex Allah inoo sahlo wax kale oo dhaama garan